السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليك قارئ دمانتين سو دوادا فيديو ليك نو سار sidoo kale channel hadii aad ku cusubtahay subscribe dheh bangiga jacaylka qalbiga waxa ka furan bangigaas oo lagu magacaabo bangiga jacaylka bangigaas hadba inta aad ku shubato ayaad ku arkaysaa hadii aad lamaanaha wanaag u sameeysid jacaylkaagu kordha hadii aad wax qaldan sameeysidna wuu nusqaama lamaanaha waxa loo baahan yahay in ay ku dadaalaan in ay jacaylkooda kordhiyaan si ay u dareemaan raaxada nolosha hadii aad isweydiinaysid maxaa kamid ah waxyaabaha kordhiya jacaylka oo aan ku gaari karo raaxada guurka waxa kamid ah kow isbarasho u baro lamaanaha sida aad naftaada u taqaan oo kale waxyaalaha uu jecel yahay waxyaalaha uu san jeclayn waxyaalaha uu dhibsado xilliga uu xanaaqo iyo xilliga uu faraxsan yahay waxay taasi ka caawinaysaa inaad si fudud ku anato qalbigiisa labo ka bilow naftaada waxyaabaha aad jeceshahay inaad ku aragto lamaanaha marka hore ka bilow naftaada Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu wuxuu leeyahay xaaskiga waxaan iskugu qurxiyaa sida aan anigu u jeclahay in iskugu kay qurxiso markaas qofka kale waxaad siinaysaa dareen jacayl saddex sheeko macaan aan wada sheekaysano macnaheedu waxay tahay aan xiriirka xoojino nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaqamadiisa waxa kamid ah in uu subax kasta iyo galabaha la sheekaysan jiray xaaskiisa waxaad kala sheekaysan kartaa sida ka war maalintaada maxaad maanta samaysay iyo waxa la mid ah kadibna in aad dhageysatid oo aad la noolaatid waxyaabaha ay kaaga sheekaynayso ama uu kaaga sheekaynayo afar hadiyad lama filaan ah hadii lagu siiyo wax aadan filaneyn waad farxaysaa qofka ku siiyay ma ilaawaysid bal ka waran hadii aad sidaas oo kale lamaanaha u siisid ama u sameeysid wax uusan filayn jacaylkiisa soo siyaadayo raad jacayl ayay qalbiga lamaanaha ku reebaysaa muhiim ma ahan in ay noqoto wax weyn waxyaabo yar yar ayaa jira oo aad maalin walba u hadiyeyn karto shan amaan lamaanaha hadii aad ku amaanto wuxuu ku sameeyay kadibna uga mahad celiso ma maraysan karaysid farxadda qalbigeeda ama qalbigiisa galayo markaas farxadda dhexdeena ku badato waxa adkaanaya xiriirkiina qof kasta oo garanaya sida guri qurux badan loo dhisto laakiin dad yar ayaa garanaya sida quruxda badan ee loo noolaado gurigaaga adaa mas'uulka ah adigana loo baahan yahay inaad ku dadaashid sida aad uga dhigi lahayd guri farxad badan marka la abuurayo geed markaas waxa lagu waraabiyo biyo wana laga ilaaliyaa qashinka si geed qurux badan u soo baxo sidaas oo kale waa in aad gurigaada markaas ku dadaashid hagaajintiisa midna ogow qof kasta oo lamaanaha kamid ah waxa ka dhacayo gaabis ama qalad taas waa dabiici alla ayaa bin aadamka ku abuuray nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninka muuminka ah ma liido naag muuminad ah hadii uu dhaqan ku dhibsado mid kale uu ku raali noqdaa